waxaan social media ka dhex arkay wiilal Soomaaliyeed oo caynaya madaxweynaha waddanka Soomaaliya. marka adiga idaabanaya inaad clip yar soo qaadatid oo aad ku ceysid madaxweynaha waddanka Soomaaliya adduunka laga daawado adigoo Soomaali ah wax loo dulqaadan kara ma aha. wiilashan haddeertaan la xiray waxaa laga yaabaa inay qaldoomeen maqaldamo waa ilaahay balse ma wanaagsana in la caayo madaxweyne Soomaaliya. hadda dadka idaawanaya dibadda jooga caay waa ka madaxweynayaasha waddanka aad ka joogtid caay waddanka aad joogtid madaxweynihiisa caay haddii lagu daynayo fiiri. marka madaxweynaha Soomaaliya waa sidaas oo kale ixtiraam ayuu ka mudan yahay ma aha inaad aflagaadeesid ma aha inaad asiga aad wax qaldan ka sheegtid waa in aad ixtiraamtaa waa madaxweynahaagii meel walba oo adduunka aad ka joogtid. ka soo qaad madaxweynayaasha wadamada Yurub mid ka mid ah haddaad caysid adigoo Soomaali joogo uu madaxweynaha Soomaaliya la soo xiriiro dhaha ninkaas ay caayay ma ogtahay in madaxweynaha waddanka Soomaaliya uu ku soo qaban karo maxkamadna lagu saari karo waddanka gudihiisa ma aha in lagu dhoofiyo waddanka gudihiisa ayaa maxkamad lagu saaraya lagu dhahaya madaxweynaha wadamada Yurub mid ka mid ah ayaad caysay that's why keeskan lagu haystaa. ka soo qaad adoo Muqdisho jooga ama adoo Soomaali jooga ama madaxweynaha Soomaaliya caysay who are you easy ata in maxkamad lagu saaro. daawada dadka waxaas ka shaqeynaya ama sheer gareynaya ha ka fogaadaan. khayr badan.